Bismillah, maasha Allah. Fadlan haddii aad jeceshahay walaal inaad ogaatid waxa aan ka sameynay sidaan u hagaajinay nala daawa ayaan ku leeyahay fiidiyowga nala dhammaysta insha Allah waana ku mahadsan tahay daawashadaada. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Walaalihii qaaliga aan jeclaa meel kastood adduunka daafiisa aad ka joogtaan ood iga daawanaysaan. Kusoo dhawaada channelkayga Dhool Dhalaal Cooking. Haddii Allah awoodda lagu qadaro insha Allah maxaan halkan ku hagaajisanaynaa malawax ayaan ku hagaajisan doonaa insha Allah. Intan maxaan ku haystaa waxaabi ama malawax ka sameyn lahaa waa sokor qiyaas ah. Sokorta haddii aad jeceshahay ku badso, haddii aad jeceshahayna ka yareyso insha Allah. Fariisuul cusba xabad ukuna 3 qaado caano ah. Sidoo kale inta maxaan ku haystaa carfiso ayaan ku haystaa insha Allah. Haddii aadan carfisada haysanin heel ayaad ku darsan kartaa. halkaas maxaan ku haysanaa burki aan ku sameysan lahayn insha Allah. Ka faa'iideyso wacan ayaan idin leeyahay walaalihii qaaliga ah. baaqul ayaan soo qaadanaynaa insha Allah. waxa dhan waan isku soo shubi doonaa, gacanta ayaan ku qasi doonaa insha Allah. haddii mashiinka markaas uu ku dhayo waad ku qasi kartaa. hadda waqti ayaan haystaa, gacanta ayaan ku qasaa, si fiican ayaan u garaaci doonaa insha Allah. meel ayaan dhigi doonaa. haddii aad degdegsan tahay hore waad ka duwi kartaa insha Allah, waxba dhiba ma lahan. haddana wixii dhan waan isku soo daray burkii, sokortii, caanihii iyo carfisadii. haddana maxaan ku darayaa insha Allah ukuntii ayaan ku soo darayaa. waad u jeediin biyo kulul ayaan ku qasi doonaa insha Allah. gacanta ayaan si fiican ugu garaacaa sidaan hore idinkugu sheegayba. la socod wanaagsan, ka faa'iideysi wacan ayaan idin leeyahay walaalihii qaaliga aan jeclahay. biyo aan ku qasi lahaana waa kana, xoogaa aad u kululaadeen, wax yar ayaan iska qaboojinayaa insha Allah. malawaxeena waa kana, waa soo qasanay maasha Allah. sidaas uu noogu jilicsan yahay, u jeediin aad u jilciyay. meel ayaan iska dhigi doonaa. hadda galab ayaa la joogaa insha Allah. caawa ayaan sameynayaa wixii aan ku sameyn lahayn iyo waxyaabihii kale oo aan gadaal uga dari lahayn ayaan idin tusayaa insha Allah. ka faa'iideysi wacan, la socod wanaagsan ayaan idin leeyahay asxaabteeda qaaliga ah. halkan maxaan ku haysanaa waa hilib shiidan waaye, baraf aan kasoo bixiyay, weli barafka ma ka dhicin. kabsar iyo toona halkaas ku haysanaa iyadana insha Allah. hilibka markuu barafka nooga dhacaa sameysanaynaa. intana maxaan ku haysanaa 2 xabo baradho ah, xabad yaanyo iyo xabad karoota insha Allah. sidoo kale halkaas maxaan ku haystaa xabad basal ah iyo barbarooniga shiidan insha Allah. intaas ayaan ka hagaajin doonaa suugadeena. cusbo ayaan ku darsan doonaa. maraq digaag waad isticmaali kartaa, wixii aad jeceshahay oo spices markaas ku darso insha Allah tacaala. markuu diyaar noqdo ayaa kana idinla wadaagi doonaa. soo dhawaada ayaan idin leeyahay asxaabteeda qaaliga ah. hilibkeeni dabkuu noo saaran yahay waa kana. hilibkii iyo waxaan isku daray kabsarta iyo toonta, wax yar oo basal ah dabka la saaray, wax yar oo saliid ah. yaanyadina waan ku daray maasha Allah. qaado yar oo shishiidana waan ku daray insha Allah. intaas si fiican ha iskugu bislaato. baradhada biyaan ku karinaya insha Allah. waan hoolayaa iyo karootada hal mar ayaan ku daray. waqti badan inay kuwaas iga cunaan ma rabo insha Allah. la socod wanaagsan ayaan idin leeyahay. malawaxeena ayaa dabka noo saaran. haddana qaybta hoose oo kaliya ayaan ka guduudinayaa insha Allah. labada dhinac waad ka guduudsan kartaa, wax dhiba ma lahan. ofinka ayaan ku sameyn doonaa markaas kadib, waana la arki doontaan insha Allah. halkan maxaan ku haysanaa waa blue band iyo maxaan ku haysanaa bur iyo caano aan isku hagaajinay. filfil ayaad ku darsan kartaa. hadda aniga filfil ma isticmaalayo, mana ku darsan rabo insha Allah. sidaas ayaa qasida ugu wadaysaa si uusan kaaga yeelanin kuuskuus insha Allah. haddana maxaan guda galaynaa qeybihiin oo haray inaan hagaajino insha Allah. maxaan soo qaatay xabad malawax, waxaan soo qaatay mayonnaise ayaan marmariyay. suugadii oo aan soo diyaarsanay maasha Allah ayaan dusha ka saaranaynaa. wax yar oo qoyaan ayay leedahay. haddii qaleelka aad jeceshahay waad ku hagaajisan kartaa, wax dhiba ma lahan. haddana maxaan soo qaadanayaa basal ayaan soo qaadanayaa. sidaas ayaan dusha uga yeelayaa insha Allah. mozzarella cheese ayaan ku shubayaa, waa ujeediin. dhinacyada ayaan kasoo laabi doonaa insha Allah. wax yar oo tomato sauce aan ku darayaa insha Allah. qofka aan haysan ama aan jeclayn wuu iska dayn karaa, waxba dhiba ma lahan. wixii markaas jikadaada ku yaala ku habayso, waxba ha iswalwalinin insha Allah. dhinacyada ayaan sidaas uga soo laabi doonaa si wax dhan aysan kaaga daadanin. labada dhinac ayaan kasoo laabay. sidaas ayaan u laabi doonaa insha Allah. makaa furfuranayso maasha Allah, waa ujeediin. sidaas ayaan soo yeelay. xabadii labaad ayaan soo qaaday. mayonnaise-ka ayaan marmarinayaa, si fiican ayaan u gargaarsiin doonaa insha Allah. waa casho fudud oo maasha Allah tabaarakallah ah. macaankeedii dhadhankeedana aniga ayaan idinka huba. suugadeeni ayaan saaranaynaa xabadii labaad. sida kii hore aan yeelay ayaan yeelayaa insha Allah.
suugada waa ujeedin wax yar oo qoyaan ay leedahay maasha Allah, qoyaan badan oo daadaadanayana ma ahan, waa wax yar oo qoyaan maasha Allah kaale iska arag ah. basal ayaan korka ka saaraneynaa insha Allah. jiiska ayaan ku dareynaa haddana sidii kii hore oo aan u laabay ayaan u laabi doonaa kana insha Allah. dhinacyada ayaa saas uga soo laabaysaa si khudaarta aysan kaaga daadanin. haddana sidaas ayaad u laabi doontaa insha Allah. sidaas ayaan kusoo dhameynayaa insha Allah. maasha Allah, ugu dambeyn markaan soo dhameynay saxankeena ayaan soo saaranay, sidaas ayaan usoo safnay insha Allah. waa ujeediin saxankana saliid iyo bur yar ayaan hoos kasoo mariyay insha Allah si uusan kaaga dhagin. haddana maxaan kusoo shubanay sooska hadaya aan soo sameysana burkii, caanihii iyo blue band aan isku soo hagaajinay ayaan ku shubay. mozzarella cheese wixii noo harayna waan ku shubnay. basal yar ayaan kor ka saaray, xiro tomato sauce-na korka uga daadaadinay. suugadii wixii noo harayna waa kaasaa maasha Allah. haddana ovenka ayuu toos u aadi doonaa, markuu kasoo baxo ayaan isla arki doonaa insha Allah tacaala. haddana foornada ayuu noogu jiraa, waad ujeediin 180 ayaan u geeyay. 20 daqiiqo ayaan sugaynaa insha Allah. markuu kasoo baxo oo diyaar noqdo ayaad ila arki doontaan siduu kusoo baxay. walaalahey qaaliga aan jeclahay, maasha Allah tabaarakallah. ugu dambeyn waa noo soo baxay, waa kaasa sidaas quruxda badan la ayuu noogu soo baxay. wixii dhan ay iskugu dhageen maasha Allah, lagama sheekeyn karo. wuu kulul yahay, hadda ayaan dabka kasoo saarnay. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan kana faa'iideysan doontaan insha Allah. please haddaad nagu cusub tahay subscribe dheh, haddii aad ka hesho like dheh, haddii hore aad noola joogtana like iyo commentiga insha Allah. gambaleelkana taabo si muuqaalada aysan ku dhaafin insha Allah. wixii talo iyo ducaana hoos noogu reeb. soo dhawaada. waaw maasha Allah tabaarakallah. waa kaasaa markii aan soo diyaarsanay oo aan soo guranay. waa ujeediin saxankina ma nooga dhagin. saxanka waa ujeediin maasha Allah. inta kalena waa taasaa aad u kulul yahay, qaaca ka baxay waa loo jeedaa maasha Allah. waxaan idin leeyahay caafimaad igula cuna insha Allah. inta aan haysan Allah siiyo, inta haysatana Allah u barakeeyo insha Allah. ansalaato ayaa hoos noogu jirto maasha Allah. waa taasaa ansalaatadii. wixii aad jeceshahay ayaad ku cuni kartaa oo kale maasha Allah. maba u baahna wax kale. tabaarakallah. cabitaankaaga usoo qaada dhab isku sii waayo maasha Allah. walaalahey qaaliga intaan ku kulmi doono muuqaalo kale sidaasi iyo nabadiina inooli kulantee. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.